somalilan allaha yuusama ku beer qalbiga noo wada sifee addoonaad samaysatay oo iimaan iyo samir bale oo wada sugayaanahaye nabadgelyada noo sugo aqoonsiga noo saxiix. waxaa maanta si weyn looga xusay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool xuskii sanad guuradii 24aad ee 18 May maanta oo kale laga xuso dhammaan gobolada Somaliland. xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay xarunta guriga gobolka iyadoo ayna ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ugu horeeya wasiirka horumarinta iyo nabadeynta gobolada bari, gudoomiyaha gobolka Sool, maayirka degmada Laascaanood, ururada bulshada, bahweynta nabadda iyo dhammaan shaqaalaha laamaha kala duwan ee dawladda, cuqaal iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. dhammaan mas'uuliyiintii madasha ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay xuska sanad guuradii 24aad ee 18 May iyagoona bulshada ugu baaqay inay nabadgelyada ilaashadaan isla markaana ay ka shaqeeyaan horumarka gobolka. farxad weynaya waxa farxad weynaya intii qaban qaabadu socotay dadkii reer Laascaanood ee maalkooda naftooda waqtigooda u horay 18 May banaad yaad ugu hambalyeynaya halkan dadweynaha reer Sool ee sida sharafta leh ee xishmada leh ee wanaagsan iiga ajiibay in ay ka soo qayb galaan xafladda 18 May aad iyo aad baan arrinka ugu faraxsanahay ee dalku waxay ka dib dhacsan yihiin gobolada kale ee dalka. waxaan isku dayay inaan kor u qaado maadaama Allah subhanahu wa ta'ala igala xisaabtamayo maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Axmed Maxamuud Silaanyo uu igala xisaabtamayo inaan dadka ka dhaadhiciyo warbal marka hore aynu samayno barnaamij la yiraahdo iskaa wax u qabso aynu samayno waxa maanta ilaahay fadligiisa waxa xagga dawladda inooga diyaara mashaariic fara badan oo aan dhowr jeer horena idin sheegay oo ugu ballaaran yahay mashruuca isbitaalka guud ee gobolka Sool. Samiir Saciid Bile, telefishinka caalamiga Royal magaalada Laascaanood.